kariye maxaa kale ku dari lahayd sheekh Ilyas ha maanta waxaan rabaa inaan su'aal ku weydiiyo ma weydiin karaa haye hooyo Soomaaliyeed watan uurka ku qaada ilmaheeda hooyo Soomaaliyeed watan umusha hooyo Soomaaliyeed watan naaska siisa hooyo Soomaaliyeed watan ciyaarsiisa ilmaheeda hooyo Soomaaliyeed watan fadhiga barta hooyo Soomaaliyeed watan daadahda barta hooyo Soomaaliyeed watan dugsiga quraanka u wado hooyo Soomaaliyeed watan iskoolka geesa hooyo Soomaaliyeed watan meesha banooniga lagu ciyaar geesa hooyo Soomaaliyeed watan dabarwaada soo wacda ilmaha halay ku duceeyado hooyo Soomaaliyeed watan la qarxiyo ayadoo ka shaqeynayso nadaafada magaalada Muqdisho hooyo Soomaaliyeed watan habeen iyo maalin oysa marka cunugeeda jirado ama gaalo ka wadato hooyo Soomaaliyeed watan oysa marka cunugeeda laga xiro ama uu saaqid noqdo hooyo Soomaaliyeed watan ku farxada marka cunugeeda imtixaanka ku baaso hooyo Soomaaliyeed watan ku farxada marka ilmaheeda ay guursanayaan hooyo Soomaaliyeed watan qabata shaqada guriga iyo tan baraankaba hooyo Soomaaliyeed watan uu ku naxariist iyo calool jilaac badan adduunka marka waxaa suwati mudan Sheekh Ilyas ha halka ugu dambeey aabba Soomaaliyeed iyo waajibaadkii la saaray waxaan rabaa inaan adiga iyo dhammaan aabba Soomaaliyeed inaga jawaabtiin والله سؤال عجيبة سؤال عجيبة زكريا waxaa sheegteen dhamaantood waa wax jira marka su'aashaas anigana waxaan u gudbinaa dadka i dhageysanay aabayaasha i dhageysanay dhamaantood ayagana su'aashaas inay ka jawaabaan ayagana aan iskala jawaabna taas aan naga rabaa Soomaa ha waa shay muhiima inay ka jawaabaan marka waa inay sida maamada ay sameynaysa ay sameeyaan hadaysan sameyn karin waa inay ka jawaabaan su'aasha ha Soomaa ha والله زكريا الله كبركي وكثر الله أمثالك أذيك أو كان إلهي هبديو أنتس عرور أما دلنير أي قانان أنت أذيك فهم سن أو أذيك حتى أتكون بواقضي دت فهم سن بعدي الأركو وحوين وحبه مهلاوا مرك إن شاء الله دلنير تأذيك أو كان الله كديكو أنت أذيك حتى أتفهم سن تاي ما ماذا أنت قبضتي أو أذيك ألف فهم سن تاي كو فهم سن الله صار أيقنا سداد أو كان الله كديك يعني لا هاي aabayaashana maanta i dhageysanayaan kelimooyinkan ama su'aalahan Zakari uu soo jeediyay dad badan ay taasiir ay ku sameyn doontaa ay saameyn doontaa biidnillahi alkarim aan rajayna insha Allah dadkii oo hooyooyinka aysan ka warqabin aysan caawinaynin way taaban doontaa biidnillahi alkarim wayna ka jawaabi doonaan su'aashaas hadaysan ka jawaabi karin waa inay wixii waajibaadkii laga rabo inay sameeyaan